الصلاة والسلام على رسول الله. وزيرك هؤلاء جود جبلان، وزيرك هؤلاء جود قلبدو، وزير كحجينك هؤلاء جود صدوستي، وزير كحجينك هؤلاء جود هيرشاميل، أجاسمها جود وزارة هؤلاء جود بونتلان كصعدة، أجاسمها جود وزارة أجاسمياش وحيها شغالها وزارة هؤلاء جود هير فدرال شرعية قاندا صحافة دمان كسوق قلياشة مصاب كسوق ماشان الغفر دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo si gaar ugu mahadcelinaynaa dhammaan dawlad goboleedyada soo aqbalay soo ajiibay wicitaankeenii iyo dalabkii aan isugu nimid ama isugu u kulannay wada tashiga hindisa sharciyeedka maamulka horumarinta magaalooyinka iyo maamulka dhulka iyo dhismaha dalka. waqtigii ay soo bixiyeen shaqadii wanaagsaneed oo muddadii 5 bariyaheed oo maanta ay 6 tahay ay soo qabteen oo ay aad iyo aad isugu hawleen in nagala qayb galaan nagala qayb qaataan akhriskii iyo ukurgalidii hindisa sharciyeedka ay soo diyaariyeen looyaradii aan hawshaas u xil saarnay. runtii in badan baan mahadcelinayna. sidoo kale waxaan rabaa halkaan uga mahadceliyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud, agaasima waaxidiyadii dhammaan shaqaalaha si gaar ah isugu hawlay martigelinta soo dhaweynta qabanqaabada iyo diyaarinta ka qaybgalka hawsha wanaagsan ee qabsoontay. doorkii ay ka geysteen ama abaalmarino iyo maamuus gaarana waan marin doonaa haddii la yiraahdo dadaalkii ay geysteen iyo hawshii ay ka galeen. marka inta mahadcelinta uga baxo runtii maanta waxaan iskugu nimid waqti fiican aan ku soo bixinay hawl masiiri ah oo dalkan dib u kabashadiisii iyo soo nooleyntiisii halbolo ah. waxaad ogtihiin dib u dhiskii dalka inay tahay maanta meelaha noogu muhiimsan oo meelaha aan aad iyo aad runtii aan burburkii nooga saameeyey. sharcigii iyo nidaamkii inta sharciyeedkii lagu habay lahaa lagu soo celi lahaa lagu soo kaban lahaa lagu wada shaqeyn lahaa ayaan maanta wada tashigiisii iyo ka qaybgalkiisii isugu nimid. waxaa farxad ah inaan si buuxda isugu afgaranay howlaha guud dhammaan ay isugu afgarteen heer federaal iyo heer dowlad goboleed. waxaan haddii aan isku afgaranay insha allah ugu gudbi doonaa hay-adaha sida sharciga ah ay tahay inay u maro haddii alla idmo oo ay kow ka tahay in xukuumadda la geeyo kadibna uu gudbo baarlamaanka sida uu ku noqdo sharci. dad badan waxay isweydiinayaan wasaaradda howlaha guud sharci bay lahaayeen. sharciyaadku dib buu u habeynaya dib habeen u baahan yahay wax badan baa u baahan in sida loo wada shaqeynayo sida uu loo sameynayo howlaha loo qabanayo ayaa dib habeen u baahan. waxaan ku faraxsannahay looyaro muwaadiniin ah oo dadaalkooda iyo aqoontooda ugu tabarucay waddanka xaqi uu ku lahaa ku gudanaya inay soo diyaariyeen ka soo shaqeeyeen iswaafajiyeen. insha allah iyagana waxaan leenahay waxaan si gaar ah ayaa taariikhdu xusi doontaa. waxaan leenahay hantidii howlaha guud waxaad ogtihiin howlaha guud ahaan waxay mas-uul ka tahay hantida qaranka. gaar ahaan mid howlaha guudna wa jirta magaalo dalka ka mida oo aanay ka jirin hantida qaranka iyo tii howlaha guudna ma jirto. waxaa ka mida mas-uuliyiinta wasiirada iyo mas-uuliyiinta ka socota dowlad goboleedyada wada hadaladeennii iyo safgaradkeennii meel kasta oo hantidii qaranku ay taallay ama ay ka jirtay
in dib loo soo habeeyo dib loo soo diiwaan geliyo gacanta qarankan lagu soo celiyo. meel fiicanna hadda dadaallo ka horreeyey oo meel fiican marayaana way jiraan. sidoo sheegay wasiirka howlaha guud ee Jubbaland Shukri Weyrax Kaari, waxaan isugu tagnay magaalada Kismaayo waqti kooban oo halkaa joognay. xukuumaddu ay guud ahaan joogtay Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo caasimadda gaarka ee Jubbaland. waxaan wadaagnay oon ka wada hadalnay wasaaradda howlaha guud oo hogaaminaya wasiir Shukri sida isaga xil saareen oo uga howlgaleen hantidii qaranka ee Jubbaland, deegaanada Jubbaland ka jirtay, sida loo ururiyey, sida loo diiwaan geliyey, sida intii gacanta lagu hayay oo ay Jubbaland joogtay ay gacanta dawladda ugu soo laabatay oo ugu jirto. runtii aad iyo aad aan si gaar ah uga mahad celinayaa maamulada qaarna. warbixinadii iyo howlihii aan wadaagnay waxaa ka mid ah inay iyagana gacanta ku hayaan oo ay sidoo kale howl badan ka qabteen oo ay hantidii qaranku gacanta ku jirto. maamulada waqtiyada dhow dhismay ama hawsha meel dhex u joogtana waxaan ka rajeynaynaa inay dhammaystiraan ururinta iyo gacan ku haynta hantidii qaranka ee ka jirta dowlad goboleedyadaas ay ka yihiin wasiirada. sidoo kale wasaaradda howlaha guud heer federaal waa iska xil saartay hawshaas, waa wax badan bay ka qabatay. waxaan ka shaqeynay inaan helno guud ahaan numberka hantida qaranka ee ka jira ama laga sameeyey caasimadda waddanka. si buuxdaana wasaaraddu gacanta uga haysa hadda tirkoobkoodi. waxaa ka mid ah soo kabashada iyo dib u soo nooleynta. waxaa ka howlaha guud inaan maanta haysano oon gacan u haysano tayeynta ama capacity building shaqaalihii kala duwanaa ee howlaha guud meel kastay joogaan. aan gacan iyo taageero u haysano goor dhowna haddii laa yidhaahdo laga howlgeli doono si ay u gutaan waajibaadkoodii si xirfadaysan, aqoontoodii iyo shaqadoodii ay kor loogu soo qaado. dadkii maadaama laga yaabo dad badan oo khibrad badan lahaa oo howlaha guud wax badan ka soo qabtay inay maanta ama howlgab yihiin amaba waqtigoodiiba uu dhammaado aysanba nooleyn, in maanta lasoo kabo, lasoo celiyo, lasoo nooleeyo aqoontii iyo xirfaddii ay lahaayeen. taasna gacan baan laka siiyey si horeba loo sheegay. hay-ada caalamiyahan gacan uga haysanaa haddii laa yidhaahdo. dowlad goboleedyadana waa ka wada hadalnay sida hawshaas loo maareynayo loo maamuli doono haddii laa yidhaahdo. mar aan dheerayn waqti dhowr ahna waan isugu soo laabayna, waan isugu imaanaynaa iyadoo laga wada qayb gelayo talada iyo horumarinta capacity building ama horumarinta shaqaalaha. hindisaciyadkaasi marka uu meel maro haddii laa yidhaahdo uu ka gudbo hay-adihii sharciga ahaa, waxaan dejinay oo qorsheynay sida loo wada howlgelayo. hindisaciyadkay ku cadda, sharcigay ku caddaa sida loo howlgelayo, sida loo wada shaqeynayo shaqadu, sida ay heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay kala noqonayso. marka uu sharci noqdona hawshaasaan dhaqaajinteedii haddii laa yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan aan uga howlgelaynaa oo saga kaashanaynaa. qorshe iyo aragtina waa ka leenna cad oo aan ka heshiino meel dhigna insha allah. aad iyo aad u mahadsan tihiin. waxaan rajeynaynaa annagu dee maanta waddanka waxaan leenahay burburka sida howlaha guud uu saameyn ugu leeyahay ama sida howlaha guud maanta qaybta ay ugu leeyihiin waa wax weyn oo baahida dalka ka jirta hal bilow ah. waana ka soo baxaynaa insha allah. waana ku faraxsannaa maanta inaan inta sharciyeedkii soo diyaarinay uuna waqti dhow noo gudbi doono. waqtiyada soo socdana aan tallaabtii ku habbooneed hore u qaadi doono. mar labaad iyo mar saddexaadba maskaxdii, dadaalkii, waqtigii lagu baxshay inta sharciyeedkaas kasoo qaybgalkiisa iyo watashigiisa waa ka mahad celinaynaa. sida la isugu raacayo tawfiiqda iyo talada iyo wanaagga badanna waa ka mahad celinaynaa. aad iyo aad mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq.